عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام halkan waxaan ku qaadanaynaa qaabka la isugu xiro HTML-ka iyo CSS-ka. shaqada koowaad aad qabanaysaa waxa weeye halkan waxaad qoraysaa simple HTML documentigan HTML-ka baad qori intaanad linkigan iyo hawlahan qorin. waayo linkigan wuxuu ka hadlayaa xirista kan lagu xirayo. marka kan maad samaynay horta kan marka hore samee. markaynu kan samayno waxaynu u gudbaynaa inaynu style-kan isna samayno. markaynu labadaas samayno ayaynu linkiga u imaanaynaa isku xidhaynaa. waxa inta inoo raacay marka inoo afreynaya waxa weeye inaynu wax ka bedelo heading 1ka halkan ku jira iyo paragraph-kan sidoo kale barigana wax ku bedelo. saddexdaas ayaynu marka wax ka qaban doonaa insha Allah. waayo sidan oo kale marka aad u timaado desktop-kaagii ugu horreyn maxaad samaynay? ugu horreyn waxaad soo kicinaysaa application-ka la yiraahdo Sublime. marka Sublime waa text editor waynu ku shaqeynaa codeskaynu ku qoranaynaa waynu ku dhufanaynaa. marka waxaynu tagaynaa markaynu halkan nimaadno file baynu tagaynaa kabacdi new baynu ka dooranaynaa. marka aynu new ka dooranno waxa loo baahan yahay inaynu halkan gelino simple HTML document. markaan intaa qabto waxaan sameynayaa file baan tagayaa kadib waxaan leeyahay save as. markaan halkan imaado desktop-kan tagayaa folder baan markaa ku samaysanayaa. folder markaan ku samaysanayaa waxaan leeyahay right click baan leeyahay. kadib markaan right click idhaahdo waxaan sameynayaa new. waxaan ka dooranayaa new folder. CSS baan markaa u bixinayaa CSS3 ba. okay markaan intaa u bixiyo halkan waxaa laga doonayaa inaan magaciisa siiyo waxaan doonayaa inaan save gareeyo aan wado halkan hoose. markaa maxaan ku qorayaa? waxaan ku qorayaa index.html magacaadii waad ku qoran kartaa. hase haatee index waxa loogu sameynayaa waa magac aanad hadhow ilaaweynin oo la rabo in aanu khalkhal kugu imanin. kadib waxaan sameynayaa halkan dhex geliyaa save baan leeyahay. kabacdi colorkii wuu isbedelay taasna waxay cadeynaysaa in xeerkayganu sax yahay amaba dariiqan aan maray. markaynu intaas samayno maxaa inoo xiga? waxa inoo xiga inaynu shaqadii labaad qabanno oo ah inaynu save garayno qaybtii styling-ka ee CSS-ka. file baan tagayaa kadib waxaan ka dooranayaa new. marka aan new ka doorto file baan haddana ku noqonayaa si aan u save gareeyo. save as baan tagayaa aan waxba ku qorin. marka save as markaynu nidhaahno desktop-kii ayuu inoo dhigayaa waliba khaasatan halkaynu indexkeena soo dhignay. marka waa inaad magac u bixiso. maxaynu leenahay style.css. save baan leeyahay. marka hal meel ay wada yaalaan. markaan saa u wada save gareeyo waxaan imanayaa qaybtan markaan imaado waa inaan linkigii sameeyo waa inaan isku xidho labadoodii. linkigu marka maxaa la rabaa inuu headka dhexdiisa galo. headka waa halkaa ka furan halkana waa ka xidhan marka dhexdiisa ha galo. haddaad linkiga ka hooseysiiso title-ka iyo haddaad ka sareysiiso waa isku mid. marka maxaan ku bilaabayaa linki baan leeyahay. linki markaa rel oo laga wado relationship xidhiidh equal double quotation baan leeyahay. maxaan markaa halkaa haddaba ku qorayaa? waxaan halkaa ku qorayaa linkigaygu waxa weeye waa style sheet. kadib space baan baxay halkaa markaa shaqadii koowaad baan ku dhammaystiray. tii labaad baan qabanaya oo maxay ah type-kii noocii. type-kiisuna waxa weeye waa text/CSS. maxaan sameynayaa markaa? waxaan qabanayaa shaqadii saddexaad oo ah inaan xeerkii linkiga xidhitaankiisa keeni jiray aan adeegsado oo ah href oo markaa laga wado hypertext reference equal double quotation. kadib halkaa waxaad gelinaysaa waxa kuugu qoran CSS-kaaga maxaa kuugu qornaa aad ku save garaysay qaybta styling-ka style.css ku qortay waa halkaa ka muuqata. qor markaa intaa
.css baa la raacinayaa. kadib maxaynu leenahay file baynu tegaynaa, save baynu leenahay. marka hadda wuu isku xidhan yahay. maadaama uu isku xidhan yahay aynu qoranno heading 1kii oo ciwaankii koobaad ah. waayo qoraalkaynu leenahay. kabacdi maxaynu leenahay control iyo s waynu save garaysanaynaa. kadib maxaynu tegaynaa stylekeeni baynu tegaynaa. maadaama inu stylekeeni nidaamka la raacayo waa nidaam ah inaad ku bilowdo shaygii markaa selectorka ahaa la dooranayay body, kabacdi bracketkaynu u furaynaa, inter baynu leenahay, waynu kala dejinaynaa. haddii baanad inter odhana xataa aad ku qortana dhib male waa ku shaqaynayaa. saa haatee inaad space u heshaba wanaagsan shaqada aad qabanayso. marka maxaynu leenahay bodyga maxaynu ka bedelaynaa backgroundkiisa, background/color waa halka hoose inaga siiyey, inter baynu ku qaadanaynaa. kadib waxaynu raacinaynaa halka column baynu helnaa, calaamadii column oo uu caan ku yahay markaa CSS-ku. semicolonna waynu kusoo xidhaynaa. kadib markaa maxaynu ka dhigaynaa blue ba inooga dhigba, midabka bluega inooga dhig. control iyo s baan leeyahay, markaa waan save garaynayaa. kadib maxaan sameynayaa, waxaan imanayaa halkan indexkan .html-ka, amaba waxaan sameyn karaa bartii aan ku samaystay baan ka raadin karaa. aan imaado markaa halkii aan ku samaystay waa kaa, waa CSS3ga soo kicinaya. markaa wakaa maxaa soo baxay, background bluega baa soo baxay. walow aanay fartas ku soo baxayn, haddana de shaqadaynu soconnaa fartan maaha hadda, ee waxa weeye inaynu background colorkiisa bedelo. waayahay aynu ku noqono markaa sublimekeenii. control s baynu leenahay. halkaa maxaynu ka shaqaynay bodygii baynu ka shaqaynay. halkan kaalay, markaa halkan hoose kaalay. qaybtan markaa maxaynu furanaynaa indexkaagi kaalay oo bal ee korto waxaad qabani heading 1kaad wax ka bedeli iyo paragraphka oo labadaba selectorisa. marka maxaynu ku bilaabaynaa, waxaynu ku bilaabaynaa h1 markaad ku bilowdo bracketkaagi furo. kabacdi maxaad samayni, waxaad samaynaysaa inaad halkaa markaa isbedelkaad ku sameynaysa aad qorto heading 1ka. isbedelka aynu markaa ku sameynayna muxuu yahay ee heading 1ka aynu ka qabanaynaa. buuggu wuxuu inoo sheegaya halkan inooga muuqda inaynu ka dhigno backgroundka color markaa light blue ama blue ama green hadba kaad jeceshahay. heading 1ka colorkiisa white baa laga dhigaya, oo halkii font color la odhan jiray HTML-ka hadda waa color, marka waa white. textku waa text align center baa la dhigaya oo bartanka. paragraphkasna font family baa la yidhi oo font face ka dhigan. markaa nooca farta firdaan uu ka dhigay. font size-ka 20 pixel ayuu markaa siiyey oo cabirku u go'aamiyey. sublimkeena khaasatan qaybtii waxaynu joognaa iminka style.css-ka. maxaynu leenahay markaa, waxaynu leenahay oo aynu ka bedelaynaa qaybtan heading 1ka color baad leedahay. colorka colon iyo semicolon baad furata. kabacdi waynu refresh garaynaa. marka colorkii blue buu inoo noqday backgroundku, ciwaankii oo color cadaan wata, centerku inoo dhigmay, qoraalkiina waa kan. hoos uga soo deg markaa bracketka. waxaan leenahay b baynu leenahay oo paragraph ah. maxaynu font family ka dhigaynaa farta firdaana la yidhaahdo. space and font /size waa halkan ka muuqata ee uu inoo keenay editorku. markaas semicolonka ka ilaawin. maxaynu leenahay font size-ku waxa weeye 20 pixel baynu ka dhigaynaa. 20 pixel 20 pixel. control s baan leeyahay, save garaynayaa. kabacdi indexkan imanayaa. halkan dhexdiisa inta la galo halkaa waa laga browse garayn karaa, halkana way tegi kartaa. markaa browse wadhe fartii noocaasay noqotay. halkeedaana way iska taallaa oo iyada dee waxaynu wax ka qabanayna wuxuu ahaa nooceeda iyo sizekeeda, laakiin muu ahayn colorkeeda. marka halkaa maxaynu kaga shaqaynay, waxaynu halkaa kaga shaqaynay
saddex shaqo oo laynoo diray oo aynu ku qabanay saddexdaba CSS-ka iyo HTML-kii markaa isku xidhan. waxaana filayaa dhammaantiin inaad casharka fahanteen iskuna xidhi doontaan insha allah. Sublime-kana waa lala soo degi karaa haddii cid aad ka heli karayso marka aad hayso waad ka heli insha allah oo aad ka qaadani. waana idin salaamaya dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.